munaasabadan bilan ayaa himil lagu dabaaldegayay furitaanka sanad dugsiyeedka 2020 ilaa 2021 ee dugsiyada Saalixudiin Schools oo ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ka dhisan caasimadda. sidoo kalena waxaa munaasabadan lagu hambalyeynayay isla markaana lagu sii sabootinayay ardaydii sanadkan uga qayb gashay imtixaankii shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee qaaday isla markaana guulaha waaweyn ka soo hoyay imtixaankaasi. dhinaca kalena waxaa shahaadooyin kala gedisan lagu guddoonsiinayay dufcaddii saddexaad ee sanadkan ka qalin jabisay dugsiyada Saalixudiin. haddaba dugsiyada Saalixudiin waxay ka mid yihiin dugsiyada haatan aqoontoodu sida xawliga u soconayso, waxaana ku diyaarsan maamul iyo macallimiin markasta heegan ugu jira inay soo saaraan arday ka dhisan maadi iyo diin labadaba si mustaqbalka ay u soo baxaan arday aqoontooda la hubo. munaasabadan ayaa maanta ka qabsoontay barxadda weyn ee dugsigaasi, waxaana ka soo qayb galay culimoodiin, maamulka sare ee dugsigan, macallimiin, waalidiin, arday iyo marsharaf kaloo tiro badan. ugu horreyn waxaa munaasabadan ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Saalixudiin Iid Sheekh Daahir Axmed, wuxuuna ka waramay marxaladii kala duwan ay soo mareen dugsiyadan Saalixudiin. ardayda maanta iskuulka ka baxday soddonka ardaygii ugu sarreeyay waxa uu ahaa 560 buu ayuu keenay dhibci laga doonayay 660 cafwan 700 baa laga doonayay 660 buu keenay 40 dhibcood oo kaliya ardayga ka dhina. haddii top 10 la qiimeyn lahaa wuxuu noqon lahaa ardayga koowaad ee top 10 ka gala ayuu noqon lahaa. ardaygii noogu hooseeyayna wuxuu ahaa 520. iskuulka waxaanu aasaasnay sanadkii 2009. iskuulka waxaa lagu aasaasay 7 arday oo kaliya ayaan ku aasaasnay. maalintii iskuulkan aanu aasaasnay fiishakayga iyo miishakaygu wuxuu ahaa in uu iskuulkani noqdo iskuul waxa weeyaan horta primary and intermediate 1 ilaa 8. waa ilaahay mahadi riyooyinkayagii riyo badan baan maanta ka haynaa, wax badan ayaan maanta ka haynaa. maalintii 7 arday ayaan ku aasaasnay markhaatibaad ka tihiin, waxay ahaayeen 7 arday ee siday u socdeen iskuulka kaga gudbay ee ku baxay bay ahaayeen. runtiina jeexay bay ahaayeen wadada maanta ardaydaasi halkaan uga hambalyeynayna ay mareen ardaydii u jeexday ayay ahaayeen. sidoo kalena waalid ku hadlay afka waalidiinta halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo bogaadin u soo jeediyay maamulka iyo macallimiinta dugsigan. waxaan leeyahay ardayda khayr iyo guul baan insha Allah idin rajaynayaa. dadaalkiina halkaa ka sii wada, ilaahay idin la qabto insha Allah waan idin ducaynayaa. dhinaca kalena waxaa hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ardaydii dugsiga hore uga qalin jabisay isla markaana ka mid dufcadihii ka horeeyay dufcadan maanta qalin jabintooda loo fadhiyo, waxayna hadallo dhiirigelin ay u jeediyeen ardaydan haatan dhigata dugsiyadan Saalixudiin. idhirkii ugu horreeyay ka baxa dugsiga Saalixudiin Schools waqti sidan may ardaydu may u badnayn. waxaan ku dhahdaa waxa soo indhinamay soo eegay because of waxaan hay 8 arday oo kaliya, laakiin maanta waxa lagu farxaa arday aad u tiro badan ayaa ka baxday oo halkan 8 kaga qalin jabinay. waxay marayaan arday 30 ku dhawaayaba maanta qalin jabinaysa ama shahaadadii aad ka qaadanaysa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa wax ilaahay loogu mahadnaqo. ardaydana waxaan leeyahay hal ogaado dugsiga Saalixudiin iyo xaafadda 31 Mayba hal ogaado dugsiga Saalixudiin Schools waa dugsi aqoontii maxaan ku dhahay wadanka taalay oo dhan isku soo duuduubay. xaqiiqatan marka laga hadlayo haddii dadka waaweyn fursad u helin waxbarashada, yaa haddii tahay dadka ardayda yar waxbarashada loo bilaabayaba, yaa haddii tahay qaybta barafidkaba, waxaan odhan karaa waa dugsi aanan marnaba soo koobi karin macallimiinta jooga iyo maxaan ku dhahday dadaalka ku jira. ugu dambeyn waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada Saalixudiin Shucayb Xasan Dhagjar. dugsigu wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood, waa qayb institute iyo qaybta dugsiga hoose dhexe. dugsigu qaybta dugsiga hoose dhexe waxa imaka haddii ilaahay yiraahdo 2020 ka bixi doonta difacadii saddexaad. qaybta gelinka hore institute-kana insha Allah bishan gudaheeda iyadana waxaanu qaban doonaa difacadii 10aad ee ka qalin jabisa. qaybta gelinka dambe waxa ka baadooyinka aanu bixino waxa ka mid ah luqadaha, xisaabta iyo waxbarashada dadka waaweyn. qaybta gelinka dambana waa dugsiga hoose dhexe fasalada 1 ilaa fasalka 8aad. maanta dugsigu runtii wuxuu marayaa marxalad aad iyo aad u wanaagsan. goob marka la asaasayo goob waxbarasho 2 ujeedo ayaa loo asaasaa. 2 ujeedo annagu aan u asaasnay runaantii maankayaga iyo maskaxdayda ku jirta waxa weeyaan in la soo saaro qof toosan si loo helo bulsho wada toosan. bulshadu marka ay tahay bulsho yani wax baranaysa waxyaabo fara badan baa meesha ka baxaya. waxaa ka baxaya yani
madowga in meelaha la isu taago dadka moobilada in la qaado run ahaantiina waxaan odhan karnaa maanta dugsiga Salaaxudiin degmada 11 May ama degmadan Axmed Dhagax waxaan odhan karnaa run ahaantii kaalin wanaagsan oo dhinaca waxbarashada uu kaga jiraa haddii aad tusaale soo qaado xilliyadii hore aan dugsiga Salaaxudiin aanu ka jirin deegaankan waxbarashada waxa loo tagi jiray suuqa loo tagi jiray ardayga waxa kaga bixi jirtay inuu saacad sii socdo saacadna wax dhigto saacadna uu soo socdo laakiin maanta dugsiga Salaaxudiin intaasoo dhan waxa weeyaan bulshadii ama deegaankii degana uu ka furtay guntiga gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin kala gedisan la guddoonsiiyey ardaydii imtixaankii shahaadiga guulaha waaweyn ka soo hooyey iyo sidoo kale ardaydii kaalmo hore u gashay imtixaankii uu dugsigu ka qaaday ardaydan dhinaca kalena waxay halkaasi ardaydu shahaado sharafiya siiyeen maamulka iyo macallimiintii muddada badan wax soo barayay cabdiweli yuusuf cumar bulsha TV magaalada Hargeysa.